gabadha aad santaagiyo iyo طaaca la'aanaad maxaan ku uga baqdaan oo dhaqanka ku aragtaan faciduhunna wacdiya oo waaniya wahjuruhunna fi lmadaajic wa talaabada labaadoo gogasha iyo hurdada iyo sariirta u banneeya wadribuuhunna gacanqaad haddii wax ku xasilayaan mid sahlan budh iyo dhangad iyo dhirbaaxo iyo feedh iyo maxaan darayo iyo sida nina isdilaysaan oo kale maaha arrintu cadaygaaga yar dabadiisa iyo maxaan ku maad naga daysay waxaad wadii cimaamada dacalkeeda oo kale sidii odayaasha reer miyigu intuu budh ku baabi'iyo gabadha uu oran jiray warwankaaha loo qala lagu baanto burburiye gabigeediiba waa xaraam sharciga islaamku qaanteeda gabadha waa lagu leeyahay qoonteeda waa laga qaaday sida awgeed waxyaabaha sharcigu dawaabida u dhigtay waxaa ka mid ah cadamul jadwa haddii gabadhu wacdiga wax tari waayo oo gogashiyo loo baneeyey waxba tari weydo ta'diib ahaan iyadoo darban ghayra mubarrix aan maar shariicadu way ogoshahay way sugtay laakiin qof weyn marka la yiraahdo shariicadu sidaasay tiri isaga bixishoonayo iska daynay waxa ka mid ah gabadhii in maxaan ku yiraahdaa uu u dadaalo oo ehelkeeda u wanaajiyo sodohdii iyo sodogii iyo seedigii iyo dumaashidii inuu hagaajiyo xurmeeyo sida ay ehelkiisa u wanaajinayso halka uu ku qaato inuu u fasaxo reerkooda haddii cidi xanuunsato dhaqaalahooda inuu ka warqabo gabadha qoyskeeda carruurta abtiyaasho noloshooda inuu ka warqabo inuu baahidooda ka warqabo xiriiriyo aad iyo aad ugu dadaalo weeyaan waxyaabahaasoo dhan baa shareecadu ay tilmaamaysaa inuu isu qurxiyo gabadhii oo labisto oo sida iyadoo ugu labisanayso oo intay maydhato u xaragoonayso inuu ugu xaragoodo oo gurigii garan daldaloolo kilkilooyinka ka daldaloolaya caloosha iyo dhabarka inaanu xidhanin iyo macawiis dhammaatay waa inuu garamo wanaagsan ama shaaro wanaagsan ama macawiis wanaagsan wax wanaagsan xidhaayo gabadha isheedii ay ku dhacday ibn cabbaas wuxuu oran jiray sida xaaskaygu ay isugu kay qurxinayso baan jeclahay aniguna inaan isugu qurxiyo ayuu oran jiray haddii xaasasku badan yihiin inuu cadaalad sameeyaa la rabaa an yacdila bayna zawjaati inuu cadaalad sameeyo ninka laba xaas iyo ka badan leh ee aanu cadaalad samayn aakhiro wuxuu imanayaa isagoo dhinacaasi janjeero sida qof faalij ku dhacay oo kale buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa la rabaa wax la qaybin karay waxaan la qaybin karin baa jira jacaylka qalbiga ah ma qaybin kartid quluubta ilaahay baa gacanta ku haya laakiin dhaqanka kale ee wanaagsan waa inaad qaybisaa waa inaanay dhicin midna inaad si macaan oo wacan u dhaqdo ula hadasho midna inaad dayacdo waa inaanay dhicin waa inaad ka ilaalisaa mu'aamaraadka waa inaad ka ilaalisaa ka warsheekoodka ceebaha qof aan ceeb lahayni ma jiro adba kun ceebood baad leedahay inaad gabadha ceebaheeda ka warsheekooto inaad iska ilaaliso inaad u ducayso markaad sujuudsantahay markaad ilaahay baryayso in ilaahay xaaska ku hagaajiyo inaad ku tidhaahdo iyadii dhagaheeda maqashiiso ilaahay baa mahad iskale waan u mahad celinayaa xaaskayga kaa dhigay oo xila iga kaa dhigay oo isu keenay alla alxamdulillah ilaah baa mahad iskale awlaad alla iga kaa siiyey aan kula noole ilaahay baan ugu mahad celinayaa nasiibka ilaahay baa isiiyey subxaanahu watacaala qof nasiib la adigoo kale ku hela hadallo wanaagsan oo qalbiga gabadha taabanaya markay bugto bugtadeeda inaad xil weyn iska saarto inaad isdul taagto tiraa sidee tahay iska waran waa meelaha kaarjabin ka soo iibsay oo dhakhtar maxaad u tegi weyde maad gaadhi u yeedhatid iyo dhakhtarka maad ballan ka soo qabsatido waayo qofkii aqalka u jifto u bugto soo adiga maaha inaad u naxariisato naxariis dheeraada aad tusto qofkii weeyaan waayo labadan qof markay isguursadaan wax qofka ku iman doona ilaahay baa og inahaas marka laga yimaado xuquuq baa ka dhaxaysa ninka iyo xaaskiisa oo ay wadaagayaan xuquuqda ka dhaxaysa waxa weeye xuquuq mutabaadala la yiraahdaa qofba qofka kale lagu leeyahay waa inuu bixiyaa waa inuu ku dadaala walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf alla waa tulay subhanahu wa ta'ala xuquuqdaas waa in la ilaaliya waa inay isu naseexeeyaan waa inay isu kaashadaan ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa kitaabka iyo sunnaha raacidiisa waa inay isu kaashadaan waa in maxaan ku yiraahdaa wixii dhaxal ah haddii midkood dhinto ka kale dhaxalkiisa aan laga qalin ee la siiyo waa in guurka iyo nolosha la wadaagaya nolol rasmi ah laga dhigaa oo ku meel gaar aan laga dhigin inaha aynu ku ururinno aad iyo aad ba mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga iyo idinka baa inuu ku anfaco camalkeena khaalis ka dhigo وصلى الله وسلم على نبينا محمد بربرتان أوغو باقا بالعتي ويلشنا تنكبر إيغتالان بعد الكي حق برتان